السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا أصحاب تقييمها بدن وعشر كيني لحاد إيا كورس كيني Quickbook أو aynu ku eegi doono charts of accounts qaybtii koowaad ama part 1. runtii chart of accounts waa mawduuc aad u muhiim ah kana qayb qaadanaya qaabka uu u shaqeynayo company-geenu. chart of accounts runtii waa meesha inoo hayn doonto dhammaan akoonadeena kala duwan sida akoonada loogu talagalay in lagu diiwaan geliyo expense accounts ama qarashaadka. tusaalahan akoonada loogu talagalay in lagu diiwaan geliyo lacagaha inaga maqan ama account receivable AR dadka customerska ama macaamiisha inaga maqan. akoonada accounts payable deynta inaga leenagu leeyahay funders ama suppliers ama wax alla wixii deyn oo leenagu leeyahay halkaas ayaan ku muujin doonaa. tusaalahan kamid akoonada loogu talagalay income-ka ama akoonada loogu talagalay cost of goods sold, akoonada loogu talagalay in lagu diiwaan geliyo wax loo yaqaano banking oo kale. tusaalahan marka aragto inaad imika lacag kaysatid cash oo kale ama bank aad lacag dhigatid akoonadii loogu talagalay oo dhan, marka transactionska business ka dhacaya oo dhan waxay saameyn ku yeelan doonaan akoonada inoo jira. marka akoonada qaar ayaa kala go'i doona, qaar ayaa isku darsami doona, guud ahaantood waxay leeyihiin related. haddaba akoonadu waa laba nooc, waa akoon systemka automatic u wato iyo akoon marka adigu aad sameyn karto oo aad abuuran karayso. marka aad rabtid inaad akoon abuurtid laba meelood baa ka tegi kartaa adoo joogo home page-kaaga in aad tagtid charts of accounts, ima inaad tagtid accountant menu kadibna aad dalbatid charts of accounts. marka halkan markaad eegtid waxaa jira akoono fara badan oo default iyo kuwa automatic loo abuuri karo labadaba. halkan marka saddex qodob inoo yaala waa name, waa account name-ka akoonka magaciisa. halkan waxaa yaala type akoonka noociisa iyo balance totalka ku jira attach kadib baa ka hadli doona. marka type-kan hadaan ku horeyno waxa weeye akoonkan nooca uu yahay ma akoon loogu talagalay in lagu diiwaan geliyo tusaale ahaan income-kii oo kale, expenses-kii oo kale, ma deyntii oo kale, ma fixed asset ama guraanka oo kale, ma akoonada ama lacagaha ku safgaraysan oo kale. maxaa akoonkan loogu talagalay noociisu muxuu yahay? haddaba si aynu akoonka u abuurno waxyaabo badan baynu dib uga hadli doonaa qaybta labaad ama part 2 insha Allah. maanta waxaanu baran doonaa qaabka loo abuuro akoon cusub. marka waxaan tagi doonaa halkan hoose ay ku taalo accountant, ima in inaga oo halkan joognaa halkan liiskeenu ka soo baxayo akoonada inoo jira right click baan leenahay, new baan leenahay, ama halkan hoose ay ku taalo accounteeda farta gelinaysaa kadibna waxaad leedahay new account. marka inta soo dooratid halkan waxa weeye waa choose one account type and click continue. halkan waxaa ka doorataa account type-ka akoonka aad rabtid inaad abuurtid noociisa muxuu yahay akoonkani. akoonkani ma akoon loogu talagalay waa tusaale ahaan kale income in lagu diiwaan geliyo dakhligii, expense qarashaadka akoon loogu talagalay, akoon loogu talagalay in lagu diiwaan geliyo wax loo yaqaano assets sida fixed asset oo kale, hantida guraanka oo kale, banking oo kale, ma waxa loogu talagalay akoonkan in lagu diiwaan geliyo hantilayaasha oo kale, ma other account waa akoono kale oo fara badan baa iyaguna halkan ku jira. imika tusaale ahaan waxaan rabnaa inaynu samaysano waxa loo yaqaano akoon aan ku diiwaan gashanano waxa loo yaqaano lacagaha tusaale ahaan oo kale aan rabno inaan kaydsano oo kale. tusaale way jiraan akoono asab bank inoogu dhaqmaya laakiin bal waan samayn doonaa daabshil bank oo kale rabno inaan samayno. waxaan dalban doonaa bank, halkan wuxuu kugu sheegi doonaa description-ka akoonkaas waxa uu qabanaya kadib waxaan leenahay continue. inta marka aan samayno halkan waa account type-kii akoonka aad dooratay nooca uu yahay. halkan waxa weeye waa account and name-kii kadibna waxaan leenahay tusaalahan kale waxa weeyaan waa daabshil account, daabshil account waan leenahay. inta marka soo abuurtid ama soo qortid account name-kaagii akoonkaaga magaciisa halkan waxaa yaala wax la yiraahdo a sub account, sub of account. marka akoonada qaar baa dib aynu ka baran doonaa hadii la ka dhigo akoon ba akoon la hoos geeniyo insha Allah hadii la ka dhigo. halkan waxa weeye waa optional, waa description key iyo bank number kii tusaale ahaan oo kale waad sameyn kartaa. halkan waxa ku yaala wax la yiraahdo enter open balance. marka akoonkan hadii ay hadaaw yaale ama lacag ay taalay waxa sheegaysaa waxa loo yaqaano lacagtii ku jirtay ama lacagta akoonka taala iyo waxa loo yaqaano date-kii kadibna waad soo gelinaysaa. laakiin inagu insha Allah transaction dib baynu ka gelin doonaa. marka waxaan sameyn karnaa cancel oo soo cancel karnaa. waxaan sameyn karnaa waxa loo yaqaano save and new, waan sameyn karnaa in event-gan ama dhacdadan la inoo save gareeyo kadibna akoon cusub awood karnaa abuurno
kadibna waxaan leenahay save and close. marka si isbedelka aynu aragno waxaan leenahay save and close. markaan samayno waxaan iska leenahay no. waxaan noo soo galay waxa la yiraahdo account name-kan waa dahabshiil account, noociisu ama type of account waxa weeyaan waa bank, balance wana iminka waa 0 just waynu abuurnay. marka aad tiraad abuurto account qaabka ayaga oo abuuraysa adiga oo mar walba eegaya account type-ka nooca account-ka aad abuuraysid. one more time hadaan ku noqono halkan ayaan fartagelinayna kadib waxaan leenahay new account. waxa muhiim mar walba in aad fahmaysid ama garanaysid meesha laga soo helayo chart of accounts. marka home-ka ama desktop-ka ama home page-ka aad jooga chart of accounts baan ka dalbanaysaa ama accountant ayaa tagaysaa kadib waxaa leedahay chart of accounts. marka akoonadiisana ayay kugu soo baxayaan halka hoose ayaad fartagelinaysaa ama halkan ayaad right click siinaysaa. waxaan leenahay halkan fartagelino kadib waxaan leenahay new. halkan marka waxaa la weydiinayaa akoonka aan doonanaynay nooca uu yahay. iminka tusaale waxaan dalbanaynaa fixed asset mid aan ku diiwaan gelin lahaa hantida guuraanka sida dhismayaasha sida kuwa aan dhisnayn oo kale qalabka aan ku shaqaysan oo kale baabuurti oo kale waxaas oo dhan baynu ku diiwaan gashan doonaa dilaa ka dhigo. kadib waxaan leenahay continue. kadib halkan waxaan gelin doonaa account name-keena. marka waxa ratid waad ka dhigan kartaa. sababta kale waxaan leenahay fixed asset baan saan u samayn doonaa ama magaca u diin doonaa. account type-keena waa fixed asset. halkan waxa waa sub accounts isaga dib aynu ka arki doonaa. opening balance waa gelin kartaa laakiin waxaan leenahay save and close. marka aad eegtid account name-keena waa fixed asset, type-kiisuna waa maxay waa fixed asset, balance-guna waa 0. marka insha Allah waxaanu qaybta labaad ka hadli doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan casharkeenan intaaynu cashar ku xiga ku kulmi doono. waa aniga oo injineer Ismaan Gurey. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi